بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. waxaan leeyahay Ramadaan Kariim. waxa aan sugaynaa caawa in Allah subhanahu wa ta'ala noo waafajiyo bishii barakaysneed ee Ramadaan. بالخير بدن waxaan leenahay Ramadaan Kariim. ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrkeeda hana soo aadiyo, sharteedana Allah naga xijaabo. ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtana ilaahay subhanahu wa ta'ala bil barakaysan oo khayr qabto waaye dhibaatada iyo jiridan coronavirus la leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda ka dul qaado. waan rajaynayaa in bisha cibaadada oo lagu jiro muxuu ahaa shacbaankii intii ku bixi karto waa ku baxay. ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda xiriga uu dhaxda u qabto, jiridan oo alla naga kor qaado waa rajaynayaa insha Allah. inta kadib waxaan rabaa walaalaha sheegtay in ay heshiiyeen Jubbaland ku heshiiyeen labadii nin Seraar iyo Xidig iyo groupkii Axmed Madow hogaaminayay. waad heshiin kartiin. colaadiinana anagu ma anfacayso. nabadiina ayaa noo roon, waayo hal irid oo lagala wada hadlo ama muxuu ahay hal af ayaad yeelanaysiin. dad walaalo ah oo isla dhashay baa tihiin, ummadoo dhan waa iska xigtiin. waan soo dhaweynaynaa inaad heshiisiin, laakiin lagama heshiin, umana heshiin kartiin siyaasadda jubbooyinka. waayo jubbooyinka waxaa idinkala dhexaysaa Soomaali weyn. waxaa idin doqonnimo ah, idin dadnimo xumo ah. haddii aad afkiina soo marisaan waxaan ku heshiinay arrimaha jubbooyinka. arrimaha jubbooyinka waa mid wiligeed soo taagneed. waa mid muxuu ahaa aad ogtihiin in baarlamaankii sagaalaad Xidig maalintii loo codaynaya asbanaan ka taagnaa. marka anagu idinka inaad heshiisiin faa'iidaan ku qabnaa, waayo idinka oo col ah habla idinla hadla xataa ma helaynin. laakiin halka shay oo aan rabaa waxaa weeye arrimaha jubbooyinka ma aha wax hal family uu ka heshiin karo. waxaad tihiin hal qoys. awal baad qalad ku dagaasheen, xaquuq dad badan aad leeyahay ayaad rabteen inaad isku dishiin. waxaad rabteen in muxuu ahaay aad milkiisaan dhul dad Soomaaliyeed oo dhan iska dhaxay. arrintaas ayada ilaahay raalli kama uusan noqonayo, annagana raalli kama noqonayno. idinkana doqonnimo idin tahay haddaad afka soo marisaan. waxaan ku heshiinay siyaasaddii oo jubbooyinka. siyaasadda jubbooyinka waxaa ku heshiin kara ummadda Soomaaliyeed oo idil. waxaa ku heshiin kara dadka deegaanka 22 qabiileed degan ayaa ku heshiin karto. haddii aad boobkii iyo burcadnimadii awalba aad caadaysateen, haddana aad idinka rabteen inaad isku dishiin, aad ummadda inaad ku sii haysiin aad rabtiinne, oo muxuu ahay ujeedadiina ay taas tahayna, hadda anagu wax weyn uma aragno. waxaan u aragnaa oo keliya niman family ah oo heshiiyey ayaan idiin aragnaa. problemka jubbooyinkana Xidig iyo Seraar iyo shakhsiyaad Axmed iyo waa ka weyn yahay. waa mid u baahan heeveniga oo u baahan dad muxsiniin ah oo ilaahay yaqaano in dadkaas xaquuqda ay isku haystaan ay kula qaadaan. ay muxuu ahaay maamul la wada leeyahay la wada dhisto. laska daayo waxa laga soo minguuriyey Jigjiga iyo muxuu ahaay Gaarisa iyo waxyaabaha laga soo minguuriyey laska daayo oo loo yimaado wax xalaal ah
oo ummadda soomaaliyeed muxuu ahay deegaankaasi walaalo ay ku noqon karaan ayaa loo baahan yahay haddayba sidaan u sahlan tahay de lagamaba hadasheenba in axmed iyo seeraar iyo ninka la yirahda xidig inay wada hadlaan ay arrin sidaas ku dhammaanayso maba muxuu ahay lagamaba hadasheenba marka dadka soomaaliyeed ee muxuu ahay arrintaas carada kaga muujinayeen waxaan leeyahay war walaalaha inay heshiiyaan waa u fiican tahay iyagay u fiican tahay annagana aan soo dhaweyno laakiin xaquuqtayna ma aha waxa lagu heshiiyey dabcan hal weelay wax kuwada leeyihiin soomaaliya wax qaybsatay markii la yiraahdo wixii ay qaateenaa ku badnaaday inaan laga soo dhicinin ayay u midoobeen annagana hadda waxa aan leenahay waxay tahay dad muxuu ahaaye iskala isballaariyey oo qaar muxuu ahaaye isbedel doon lugta dhigtay qaar muxuu ahay maamul xidigiisa u dhacay muxuu ahay sheeganayo isballaarintii ayaan muxuu ahay dhib ku qabnay waxaan leeyahay dugsigii idiin oodnaa walaalkay seeraar iyo walaalkay xidig dugsigii idiin oodnaa so idinka ayaa ahalkiina ka raacay oo muxuu ahay door biday in annagana arrintaas waa soo dhaweyneynaa in aad ahalkiinii aad u noqotiin aad iyo aadaan u soo dhaweyneynaa markuu horeysaba aniga waa la yaabanahay in laba nin oo ilmadeer oo weliba jifo hoosa ay ku dagaalami karaan muxuu ahay waxa yar oo sandaleela arrinta jubbooyinka way ka weyn tahay sandaleelo way ka weyn tahay xil waxa la isku haystaa waxaa weeye dhul future mustaqbal dadkan soo guuriyay hal mar dhulkan soo dagay ee dadkii deegaanka ignorareeyay ee dadkii deegaanka dhibka u keenay ma sii joogi karaan maya ha joogaane muxuu hayay ka talin waxa la isku haystay waxyaabo oo maseyri ay waaye ma aha axmedaa xil ka rabay iyo axmedaa xilka iyo looga dhagay iyo axmedaa doorashadu maba aaminsana aniga inay doorasho dhici karto meel ay nabad ka jirta ay doorasho ka dhici kartaa meel muxuu ahaay xoog lagu haysto doorashada ka dhacaysa maxay tahay waa doorashada north korea oo kale doorashada north korea oo kale waaye doorashada north korea I don't think in qof walba uu hami badan uu siinayo meelaha oo dictatoriyada ay ka jirta meelaha xoogga lagu qabsaday doorashooyinka muxuu ahay laga rajayn kara maxay yihiin marka waxaan leeyahay waxaa weeye in adduunyada aan sarcaad been la tusin waxaan runtii aan rabaa inaan baaqiga gaarsiiyo safaaradda Amerikaanka USA African Union IGAD Arab League OIC dhammaan European countries AU dhammaan dowladaha daneeya jaamacadda carabta dhammaan dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya inay arrimahaas lag u laalaalin meeshaas laguma heshiinin waxa heshiiyey waa laba nin oo ilmo adeer ah saddex nin oo ilmo adeer ah oo warqad saxiixday waay qoomiyada meesha degan yaan lagu qaldamin yee af jilacsan iyo qoraallo qurux badan idinku sirin annagu meeshaas danta aan ka leenahay waxaa weeye in dadkaayna mustaqbal waara ay ku wada noolaadaan ayagana waxay rabaan inay wax billaqaystaan differencega noo dhexeeya waa kaa nin billaqadoon ah oo xoog in wax ku maamusho rabo iyo dad raadinaya future dadkaas ay ku wada noolaadaan annagu ma rabno maamul xoog ku yimid idinkana ma ogahay dowladaha caalamka ma jeclo maamul xoog ku yimid axmed xoog buu ku yimid xoogowna rabaa dadka in isku xukumo wixii meeshaas ka dhisnaayo dhan qoyskiisa iyo qabiilkiisa uu siiyey mana aha wax loo qaadan karo idinkana waxaan idinka codsanayaa beesha caalamka dowladaha aan magacyadooda sheegay
dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa inaadna gacan ku siinin dulmiilaha, inaad gacan ku siisaan bisareexa dhabta, inaad runtii u sheegtaan. aad tiraahdeen saddexdiina hal jufo Soomaali aad isku tihiin, Soomaalidii kala la heshiy. laakiin inay warqado been idin soo qortaan, taageero been ay idinka raadiyaan, waxaan filayaa beesha caalamka ee dowladda Mareykanka ugu horeyso waxay taageerayeen waa ummadda Soomaaliyeed future-keeda shakhsi ma shakhsi maalin buu baxaa, laakiin kalsoonida ummadda Soomaaliyeed ayaa muhiima in la kasbado. ninkii inta xoog ku yimid dadka laayi, colaado ka abuuri, xoog inuu wax ku qabsada rabo, bal fiiri doorashada la sheegayo oo hadda maanta ay leeyihiin doorashadaasaa sax ahayd. 3 qof iyo keen midaan kala baxaa, odaygii diidana waan dilaa. ilaah baan idinku dhaariyay beesha caalamka iyo adduun weynaha doorasho noocaas meelay ka dhacayso ma jirtaa oo ogolaan kartiin. haddayba doorasho sidaas u sahlan tahay ee 2 qof iyo keen qofaan kala baxaa ay sidaas u sahlan tahay, hadda maba doorasho dhib badan ba cid xakunka digi lahayd male. inta maanta joogtaa kusoo noqnoqon lahayd. sidaas daraaddeed annagu hadda doorasho ma taagno, waxaan rabnaa maamul la wada leeyahay oo la qaybsado 4.5 lagu qaybsado oo aan qabiil badsanaynin, oo aan qabiil loo badinaynin in la dhiso. hadday taas diidaan, ummadda Soomaaliyeed nasrigeeda ilaahay baa soo dedejinaaye, yaana gacmaha noola qaban, yaanan muxuu ahaay nagula kor haynin ninkaas gacan saarka la leh shabaab. saaxiibkay xidig waa ogsoon yahay in baarlamaanka bishii May baarlamaankii 9aad inuu maalin cad banaanka iska tagay asaga oo muxuu ahaay la diiday. waad ogyahay haddii uu isyeelayo faqi talkiiska ma jannataga warkiisa og yahay. as soon as welcome wixii ka yimaada berito future xumo qaab darro ah, ileen qabiilkaaga haddaad maanta dulun ugu hiiliso, biri qabiilaadkii kaloo midaysan ayaa noon reer hebela imaanaysa. adigana meeshaad ka rabto cod meeshaas waa ha ugu hiilin maanta qabiilkaada gardarro. qabiilkaaga gardarraha ha ugu hiilin, sababtoo ah haddaad gardarro ugu hiiliso future-ka xataa mustaqbalkiina ku baaba'aya. aad iyo aad u mahadsantihiin. anigu waxaan rabay inaan la hadlo waxaa weye beesha caalamka oo aan ka baqayay in warqadan qoraalka oo ay xirfadii saaxiibkay xidig ay ka muuqato la shuuteeyey beesha caalamka in lagu qaldo aan ka baqayay. marka insha Allah waxaan leeyahay 3 wiil oo walaalaha oo heshiiyey, heshiiskiina waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid aad isku qabanaysiin, qaladka aad isiga celinaysiin inuu noqdo ee aadna noqonin mid aad ummadda Soomaaliyeed u heshiinaysiin, dalkeenana aad ku dibindaabiyeynaysiin oo muxuu ahaay aad imkaynaysiin. waa suurtagal walaalkay Seeraar iyo ninka la yiraahdo xidig in barashar xoog badan kiyaatiga ay saareen oo meeshaas ay naftooda ay u baqeen. suurtagal waaye haddii muxuu ahaay aan qaldamay raalli ahaada. haddii ay jirto sida hadda aad qoraalkiina u yahay ay tahayna iyo saxiixadiina aan ku arkina ay tahayna, waxaa weeye haddii aad heshiiseen walaalihiin adiga iyo Axmed iyo Seeraar buu walaalaa tihiin, dad walaalaa hal jifo ahaa tihiin. halkaas jifo haddii aad heshiiseen qaladka inaad iska qabatiin oo aadna noqonin qoomkii Nabi Luud camal, aadna noqonin oo aadnan kuu qaladka isiigu sacbiya aadna noqonin ayaan idinku waaninayaa. oo aad tiraahdeen warreedhaha maxaa Soomaalii kale naga goonin yeelay ilaa intaasoo qabiilaa degan, maxaa noogu farta noogula soo fiiqaa, maxaa wax boob noogula sheegay, maxaan wadanaa inaad iswaanaysiin oo dib aad maskaxdiina isula noqotiin ayaan rajaynayaa. aad iyo aad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.